dadka walaalaha ah oo halka degan waxaan ugu baaqaynaa wixii dhacay waa dhaceen wax dameeyaanay dhicin war saraakiisha dirirayo damiya baaruud dumarka iyo caruurta qalbiga nabad ka doondoona meesha dadkeenu isaga xirnaa ceeri gaabay ahayd iyadiina haddaan naga goysaan Soomaaliya oo dhan baa horta idan habaaraysaba khayr adeeshaan iska daaye dagaal wiil baa ku dhinta laakiin wiil kuma dhasho nabad baa naas la nooga leh nabad ayaa wax kasta ku xiran yihiin dagaal iyadu ku xiran yahay horumarku iyadu ku xiran yahay wanaagu iyadu ku xiran yahay walidaalika baa nabigu sallallahu alayhi wa sallam ninkii tala weydiiyay wuxuu ku yiri la taqdab ilaa 3 jeer buu ku yiri عرون يعني ردتك وعرون يعني عروا إيمان إنسان لكن معناه حاوي عرض صوحة يكون ريح يسهيل عرض تلو ولا أكثر كم رضت غير عرقا ورالك معها يان ليدين كل ريحين يان دجال كاليدين جرين دجال كسير با دجال اللي سجرية وعاطفة وحوي ليدكم أغون دق ليدكم أغون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين annagoo ka mid ah culimada Puntland iyo ganacsatada Puntland shirkan waxaan u qabanay inaanu baaq nabadeed u dirno dadka walaalaha ah oo dhibaatada ay kaga dhexdhacday magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag dadkaas walaalaha ah ugu horeyn dadkii dhintay ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu naxariisto dadkay ka dhinteen bedel khayr qaba ilaahay inuu siiyo subhanahu wa ta'ala ilaahay inuu tabantaabiyo dadka dhaawacana allah waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu boogadhayo oo ilaahay uu caafimaadiyo subhanahu wa ta'ala dadka walaalaha ah oo halka degan waxaan ugu baaqaynaa wixii dhacay waa dhaceen wax dameeyaanay dhicin reer Ceergaabo waxay ahaayeen dad ilbax ah oo Soomaalidu intii ay dagaalamaysay dhowr iyo 30 sano ugu dameeyay waxay ahaayeen dad xadaariyiin ah oo awood u yeeshay inay wada noolaadaan oo magaaladaas sida ugu fiican ay ku wada noolaadaan ay wada deganaadaan xadaaradii iyo ilbaxnimadii yaan lagu ciyaarin waxaan ugu baaqaynaa labada dhinacba cidda dagaalka horinaysa dhinac kasta ha ahaatee gacmaha in la qabto wixii dhacay waa dhaceen cidii dhimatay waa dhimatay cidda mayaanayna ka dhiman wax damana aanay dhicin odayaasha iyo culimada iyo waxgaradka meel kasta jooga oo arintaas nabadda ka shaqeynaya iyagana waa mahad celinaynaa jazaakumullahu khayran wax badan bay qabteen dadaalkana waxaan leenahay la sii wado dhibkaasna waynu naqaanaa dil dhacay ilaahayna waa laga dheeraanaya dadkiina waa ku dhamaanaya wax ilaahay lagu caasiyo gaalnimada kadib waxa ugu weyn qof muslima in la iska dilo oo dhiigiisa la xalishado arin hawl yar ma ah adduunkana hadda waa adduun seego amnigii iyo deganaanshihii noloshii oo dhan ayaa la waayayaa marka ujeedadu intaas un bay ahayd dadkaas nabadii ay ku wada noolaayeen in lagu soo celiyo cid walbo dib wadana labada dhinac inay iska gartaano ay iska qabtaan wanaagii nabadii ku wada noolaan jireen dadkaas walaalahana inay ku wada noolaadaan sida uu sheegay oo iga horeeyay Sheekh Maxamed Xaaji Yuusuf waxaan ugu baaqaynaa walaalaha Soomaaliyeed ee degan magaalada Ceergaabo ee ah xigtada iyo xigaalka ah nin iyo seedigii wiil iyo abtigii wiil iyo maxaan ku leeyahay in adeerkii waxaan leenahay fitnada halka laga hurinayo iyo dhibka hadda ka bilowday oo wali daba qabashada leh waxaan leenahay halka lagu joojiyo oo marka ugu horeysa dadka fitnada afuufaya oo dhibkaas hurinaya waxaan leenahay ilaahay ka baqa subhanahu wa ta'ala dhiig muslim wax lagu ordo ma aha nabigeenu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam la yazalu almar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman qofku kama zuulayo fusxo iyo waasicnimo inuu haysto diintiisa dhexdeeda inta uusan dhiig xaraana ku dhicin sida daraadeed maalka iyo meesha uu ku dambeyn doono ee dhiiga muslimka oo xaq darro lagu daadiya meel xun weey waana waxyaabaha quraanku al-khulud fi an-nar uu sheegay saa daraadeed fitnada ilaahay looga baqo ee dilka muslimiinta magaalada Ceergaabo waa magaalo sharfan waa magaalo manaakh iyo jawi iyo bii'o qabow ku taala barwaaqo ah xoolihii leh maxaan ku leeyahay xabkihii leh macdantii leh wax beerihii leh wax walba ay yaalaan dadka dega waa dad ehela oo muslina oo Soomaaliya oo wixii xaq oo la isku leeyahay isku leh sida daraadeed magaalada waxaan leenahay
nabad ku wada deganaada, isjeclaada, isgacmaha isqabsada, fitnada iyo isdilka iska ilaaliya. waxaan ku baaqaynaa nabad. war walaalayaalow nabad, war walaalayaalow nabad. wuxuu yidhi ninkii Soomaaliyeed, nin walaalkii haanka ugu riday hoog Allah baday. ninkii walaalkii yani waxa weeye rubada ku dhuftaa hoog unbuu kasbaday, garabkiisii buu baneeyey. walaalayaalow nabad, dhibka iska daaya, dagaalka iska daaya, fitnada iska daaya, ilaahay uga baqa. waxaan leenahay odayaasha, dhalinyarada, dumarka, akhyaarta, culimada, madaxda, siyaasiyiinta, waxaan leenahay kulligiinba nabad raadiye. war saraakiisha dirirayo damiya baaruud, dumarkii caruurta qalbiga nabad ka doondoona. waxa weeye qof walba qalbiga nabad ha ka raadsho. nabad baan ku baaqaynaa, ilaahay ka baqa. waxaan halka tacsi uga direynaa dhammaan dadkii ku geeriyooday shaqaaqadii Ceergaabo ka dhacday. waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu dembigoodana dhaafo, ilaahayna u naxariisto. waxaan kaloo halka aan baaq uga direynaa dadweynaha iyo shacabka reer Ceergaabo ee deriska ah, walaalaha ah, ceelku ka dhaxayo, daaqu ka dhaxayo, guryu iskugu qabsan yihiin, Soomaali cid kasta iskaga dhow, inay joojiyaan colaadda, isdilka, isnaca iyo dhibaatada hadda ka aloosan Ceergaabo. dadka reer Ceergaabo waxay ahaayeen dad derisnimo iyo walaalnimo iyo xididnimo iyo ehelnimo ku wada nool intii dalka burburku ka dhacay. gobolka markii lagu soo noqday qaxii kadib waxay isugu yimaadeen talo ballaaran oo ay heshiis ku yihiin beelaha degan dhammaantood. waxayna isla qaateen inay nabad ku wada noolaadaan, in duruuf kasta iyo dhibaato kasta la soo daridana ay wada hadal ku dhamaystaan. taasayna ku soo caanamaaleen. waxaa la rabaa tii inaad xoojisaan oo aad dhibaatada joojisaan, oo aad dagaalka joojisaan, oo fidmada joojisaan. dagaal wiil baa ku dhinta, laakiin wiil kuma dhasho. nabad baa naas la nooga leh. nabad ayaa wax kasta ku xiran yihiin. dhaqaalo iyadu ku xiran yahay, horumarku iyadu ku xiran yahay, wanaagu iyadu ku xiran yahay. maanta waa dareemaysaan shaqaaqada ka dhacday gobolka. iskuuladii waa xirmeen, ganacsigii waa xirmay, dadkii waa kala qaxeen, noloshii oo dhan baa duntay. waxaa la rabaa marka inaad haruub daatay gadaashiis ayaa la qabtaa. waxaa la rabaa inaad waxaasoo dhan ka tanaasushaan oo isu tanaasushaan oo wanaaga ka wada shaqaysaan. waxaan aad iyo aad runtii ugu boorinayaa odayaasha haddana hawsha ku jira inay xoojiyaan wada hadalka iyo nabadda iyo isu tanaasulkaba ay awood badan geliyaan. dadka reer Ceergaabo waxaan ku boorinayaa dhammaantood inay cid iskaga dhow aanay jirin, in dhibaatooyinka dibadaha kaga imanaya ee abaabulka aanay dheg u raaricin oo ay dantooda gartaan. cidda wax ka dumayaan waa dadka gobolka wada degan ee deriska ah. aad iyo aad baan runtii aan ugu mahadcelinaynaa dadka hawshaas ku jira oo odayaasha ah oo waxgaradka ah. waxaan dhallinyarada ku boorinaynaa in ay dulqaad sameeyaan oo dadka odayaasha iyo culimada ay maqlaan oo ay taladooda dhageystaan. waa dadkii idinka waaweynaa, waa dad wax badan taariikhda ka og, waa dad og duruufihii dalku soo maray iyo dhibaatooyinkii ka dhacay gobolka. waxay u daneynayaan waxa weeye ninka dhallinyarada ah oo maanta mustaqbalka leh, inaan mustaqbalkiisu xumaan, oo nolol fiican ku noolaado, oo nabad ku noolaado, oo dalkiisa u adeego. waxaan kaloo runtii aan isleeyahay Soomaali meel kasta ay joogto maanta dalkeenu waxa uu la ildiran yahay waa dhibaatooyinka dhexdeena ka jira oo runtii aan wax macna aan lahayn, oo 30 sanadood nin guuray aanu jirin oo inuu dawada ay saasano oo maalin kasta meesheen shaqo ka dhaqaaqnay inuu dib ugu soo noqonayno oo colaad iyo dhibaato iyo burbur aynu ka shaqaynayno. waxaan isleeyahay arrinta in la ilaawo, in wadda Soomaaliyeed gacmaha is qabsadaan, inay ka wada shaqeeyaan sidii midnimadooda u soo noqon lahayd iyo sharaftoodii iyo karaamadoodii iyo magaca adduunka ku lahaayeen. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Fuaad inta ay sheegeen bay khulaasadu ahayd. haddaan wax ku darayno waa naxnaxin
13 beri baan gobolka soo joogay caasimadiisa iyo aaga ku dhow sanaag la yiraahdo aad bay reer sanaag noogu sheekeeyeen barakooyinka iyo qiimaha iyo taariikhda gobolka sanaag leeyahay noo dhigeen waa gobolkii awoowayaasha ayay noo dhigeen marka awoowayaashiina waxaa laga rabay inay dadka horta isu hayaane meeshii loo qaxi lahaa in qayradu ka soo yeerto horta la idan ka filmayn arrin labaad oo mas'uuliyadda idan ku cuslaynaysa baa jirtayoo markii wadadii u dhaxaysay sool iyo togdheer ay naga go'day meesha dadkeenu isaga xirnaa ceeri gaabay ahayd iyadiina haddaan naga goysaan Soomaaliya oo dhan baa horta idan habaaraysaba khayr adeeshaan iska daaye marka booskii inaad noo buuxisaan oo ka soo baxdaan nabadgelyada iyo isku xiraantiina ayaa saldhig u ah arrinta kale aan xusi lahaa oo khiyaarta culimadu ay sheegeen ay muujiyeen waxa weeye labada reer oo hadda wax ka dhaxdhacayaan waxaan hubnaa oo ognahay labadaba inay ka go'an tahay inaysan colaad iyo dagaal dhex marin oo dhalashada iyo xididnimada iyo darisinimada iyo saaxiibnimada iyo isku dan inay yihiin ka sokow wax hadda dhib iyo mushkilada oo dhex yaala inaysan jirin oo xaqiiqo ah baan hayna marka hadday labada reerba qaraarkooda uu sidaa yahay dantooduna sidaa tahay diintooduna sidaa amrayso waxa ka duwan waa dhacdooyin khalad ah oo bani aadamkoo dhan ka dhaca oo u baahan in la xalliyo marka khalad ka dhacay in la saxo miyaa loo baahan yahay mise in khaladyo ka sii waaweyn lagu daro dadka caqliga leh oo wax garanaya arrintaasi marka munaasab kuma aha arrintaa waxa xiriir la leh ama dawlad ha lahaado ama reer ha la ahaado ee dadka waxgaradkooda oo aqoon-yahankooda oo talada ay gacanta ugu jirto in dheer garadka ah talada iyo danta dawladdaas ama ummaddaas ama reerkaas meesha ay ku jirto ay arkaan oo ay go'aansadaan baa reerkoo dhani ku amran yahay ciidamadu cid in lala dirira aan loogu talagelin inay la diriraan sax ma aha in ay rabsho aan waxgaradkii iyo hoggaankii dadku diyaar u ahayn ay dadka geliyaan iyo dagaallo aan la go'aansan oo aan la qorshaysan oo aan maslaxadu ku jirin inay ciidamadu dadkooday dantooda ka shaqeeyaan bay ahayde inay dagaal iska gal iyo iyagu xiisahooda u galaanna ma qabato hadalkaas wuxuu si gaara u socdaa reeraha ciidamo beeleedyadooda iyo dhalinyaradoodu dagaal aan labada beelood doonay inaysan gelin oo ilaahay ka baqaan haddii kale cuquubaa ku dhacaysa arrinta kale oo ay mowduucan la xiriirtaa waxa weeye dhalinyarada reer magaalka ah oo ama warbaahinta ka shaqeeya ama social mediaha xoogga kule oo bulshada jiheeya qaraarka iyo maslaxadda deegaanka iyo reerayowga iyo dadka oo ay ku midaysan yihiin oo isku og yihiin baa la rabaa bulshada inay ku jiheeyaan oo ku hoggaamiyaan oo ku abaabulaan dawlad walba ama deegaan walba dantiisa go'aanada u ah baa warbaahinta iyo ciidanka iyo siyaasadda iyo diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha iyo diinta iyo waxbarashaduba u khidmeeyaan laakiin ummadda danteedii oo hoggaankeedii ay si u arkaan in warbaahintu si ka duwan u hadasho oo ciidanku si ka duwan u shaqeeyo arrintaasi adduunka lagama yaqaan waa dhaqan Soomaali u gaara oo aad u liita oo loo baahan yahay inaan ka tanaasulo marka ciidamada iyo warbaahinta iyo social media ilaahay ha ka baqeen danta ummadda muslimiinta gaar ahaan dadka ehelka iyo meesha wada degan oo aan colaadi ka dhaxayn doonayna wax ka duwan dantooda yaysan ku cariirin oo aysan gelin arrinta kale waxa weeye oo anigu xusi lahaa dunida loolan baa ka socda oo aad baa la isu hayaa reer galbeed oo Mareykan hogaaminayo reer bari oo Shiina iyo Ruush hogaaminayaan oo Iiraan iyo Shiicana ku daaban tahay kuwaana dawlado badan ay wataan oo muslim iyo gaala ah baa loolan dunida dhulka lagu loolamayana dhulka Soomaaliyeed baa kow ka ah dawlado tiro badan oo labada group ku kala xiranna dhulkeen iyo dadkeena way isku haystaan Turki iyo Imaaraat Itoobiya iyo Masar xuuthiyiintii halka jooga iyo shiicooyinkii ka dambeeyay maxaan ku iraahdaa shabaab iyo maxaa la oran jiray Daesh ma kuwi kale Eritrea iyo Djibouti meeshan baa lagu wada loolamaya dadkaas oo dhanna labada group bay u kala shaqeynayaan dhulkeena shidaal iyo gaas iyo dahab iyo macaadin kala nooca ku jira meelaha hadii dagaalka Gaza uu dhinac u dhaco
iyo dagaalka Ukraine uu dhinac u dhaco meelaha dunidu isku hardiyayso baynu ka mid noqon karnaa aadka khatar